maanta waxaan joognaa deegaanka Daarusalaam ee degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Halkan waxaa taagan Dr. Jaamac Ilaala Jecel oo wareysi kooban ku bixinaya. Dr. soo dhawow halkan ku soo dhawow. Warbixinta halkan aad ku jeedinaysay noo jeedi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan ugu bishaareynayaa dadweynaha adeega Daaruraxma meel kasta adduunka ay joogaan. Waxaan ugu bishaareynayaa waana salaamayaa in badan. Halkan waa mashruuca aan ugu talagalay ceelka iyo beerta Daaruraxma maadaama baahidu ay aad u badan tahay kiisas badanna Ilaahay nagu guuleeyay oo aad ogtihiin shanta qaaradoodba inaan gaarsiinay daawooyinka. waxaan ku fakarnay maadaama abaar ay soo noqnoqdeen oo dhirtii qaybo badan ay naga tabargo'day inaynu soo celino oo badbaadino si aynu u badbaadino dadka dhirtaas. aadna waa idin salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran YouTube-kayga Dr. Jaamac Ilaala Jecel jooga Hargeysa, kuwa jooga Mareykanka, kuwa jooga Wajaale inaan xarun cusub ka sameeyay meesha la yiraahdo Nairobi Islii oo ay ka helayaan daawooyin cusub. waxaan halkaa oo aan ka sameeyay Uganda oo ayagana ay ka helayaan daawooyin hadda soo baxay. aad baan idin salaamayaa bulshadayda dhammaanteed. YouTube-ka booqda Dr. Jaamac Ilaala Jecel wada shaqayn wanaagsan. ku soo dhawaada Daaruraxma. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.